cadaaladda adduunka u soo gudbisay waxay dhibinayaan والله maanta guul ayuu ku soo dhammaaday dhammaan doodihii Soomaaliya maxkamaddu waa ay qaadatay doodii Kenya ee xuduudda halka ay ka bilaabmayso waa ay diiday doodii Kenya ee arrimaha darro awgeed inay u joogaan meesha waa ay diiday doodii Kenya ee xaqiiqadii Soomaaliya waa ay diiday maxkamaddu waxay qaadatay qodobadii khuseeyay halka xariijintu ka bilaabmayso ee Soomaaliya Soomaaliya guuleysatay dhammaan madaxdeena guuleysatay madaxweynaha Soomaaliyeed baa guuleystay dowladda Soomaaliya guuleystay dadka meesha uu marayo iyo sida loo jeexay oo maxkamaddu aad ku arki doontaan maabka dhammaantood waxa ay waafaqsan tahay doodii Soomaaliya guuleysatay tahay Soomaaliya قول Soomaaliya قول يا قوني قول maxkamadda ICJ waxay sheegtay inuusan jirin heshiis labada wadan waa Soomaaliya iyo Kenya horay uga heshiiyeen ama uga gaareen muranada la xiriira xariiqa xuduudda biyaha ee labada dal taasoo macnaheedu yahay in wixii hadda ka horeeyay labada dal aysan lahayn xuduud rasmi ah oo ay heshiis ku yihiin oo aan ahayn tii uu dhigay gumaystihii maxkamaddu waxay gabi ahaanba diiday naqshadii xuduudda ay soo qadimtay Kenya taas oo muujinaysay cabirka sohdinta biyaha oo gudaha u galayay Soomaaliya sida ka muuqata go'aanka maxkamadda ee 12 Oktoobar 2021 ay soo saartay waxa gabi ahaanba wax yar mooyee inta badan biyihii lagu muransanaa loo xukumay Soomaaliya waxa maxkamaddu in yar dib u riixday xariiqii sheegashada Soomaaliya ay ahayd jiitin toos ah oo ka deganaysay xuduudda dhulka ee labada dal waxa sidoo kale gabi ahaanba meesha laga saaray sheegashadii Soomaaliya ay ahayd in Kenya ay ku xadgudubtay sharciga caalamiga ah kadib markii biyaha lagu muransan yahay ka bilowday sahan xagga shidaalka ama shidaal baaris waxay maxkamaddu sheegtay in Soomaaliya aysan keenin caddayn ku filan sidaa darteedna aysan xaq u lahayn wax magdhow ah ku saabsan arrintaasi go'aanka maxkamaddu racfaan ma laha wixii maanta ka dambeeyana waa taariikh cusub iyo xuduud cusub oo rasmi ah oo ay yeelanayaan Soomaaliya iyo Kenya taas oo aan ahayn oo kaliya xuduudda biyaha ee xitaa qusayn doonta dhanka dhulka Kenya dhankeeda lama filayo inay ayido go'aanka oo way isaga baxday maxkamadda laakiin Soomaaliya ayuusan u furnayn dhaba kale oo aan ka ahayn inay